آله وصحبه أجمعين وبعد ولا لا مسلمين وحن إن شاء الله بإذن الله تعالى أنو شيء يا ولا ريال إن أي صائف بحضي أما مدة تنبل هذا الهيئ علامات كم إذا علامته والنبي إنه شيء صلى الله عليه وسلم وهاد صبيحتان كدجال العور ولا صعتان دجال العور حديث فربضن أي النبي صلى الله عليه وسلم كجور من قصدي سا هسه هاته وحامانته سعد له أركي أو العضي أو سعدان الله أركي متكم إذا علامته والنبي إنه شيء صلوات الله وسلام عليه نبي وحي مركي آخر زمن كلا جار واحد صابح دون ننكاسو العوران إسلام كان شيئا دونا إنه يه إله ننكاس أمد فسادين دونا ضد بدن براعي دونا ضد بدن بولين دونا واحد بدن بخرب دونا لكن وكم ممنوع إنه قاله مكية مدينة إلهي أيام مكية مدينة مركز الدفاع ده إسلام كان مركي ومركز تسوق خرب أيوه يسكت يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه قاله مقالة مدينة مركود دبعين وقالوا أيوه الله كل ما يدجال العور يقوم كمركان للسعودية مقالة عيدة مفر بدن أي كوج جداميين إسلام مركان وسنجلي كرين مركز على تاسي ولا ريال وحو فوريا بور كم إذا بورها مقالة كوني ذا كيال وحنا كو أورندونا قوم كي سبع ليري مركو مقالة جلي كرواي أيوه وحو كتو سيا قوم كيسي ميل فوق بور تشيدا أيوه أورندونا دجال العور موجودان قصرها موجودان عد meesha ku yaala markaas ay oran doonaan ha markaas oran doonaan waa masjidkii waxa weeye maxamed weeye masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallamna waxa uu nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu aakhir zamanka noqon doono qasri laakiin xilligii nabiga uu ahaa dhoobo iyo sanadadii ka dambeysay intaasoo qarni oo ka dambeysay wuxuu ahaa dhoobo ahaa maanta marka waxa weeye calaamadii nabigu sheegay ee dajaal cawar qoomkiisana uu tusi doono oo ah qasri cad in ay noqon doonto waxa weeye masjidka nabigu maanta qasri cad buu noqday saad u jeedaan dhalada uga jeedaan waxa weeye calaamadaasina waa calaamada ugu horeysa ama waxa cad ee maanta cadaanka ee muuqaalka dhabta ah la og yahay waxa weeye nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiiska uu ku sheegay 1400 sano intaas ka hor ayaa maanta cadaatay marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa in aad xifdidaan 10 aayadood ee ugu horeysa suuratul kahf qofkii xifdiyo 10 aayadood ee ugu horeysa suuratul kahf ma la kulmayo dajaal cawar sharkiisana waa uu ka magan geliyaa ilaahayna waxa weeye isaga iyo dajaal cawar waa uu kala magan gelinaya marka 10 aayadood ugu horeysa suuratul kahf xifdiya qof kasto 10 aayadood xifdiya ilaahay sharkiisa waa uu ka magan gelinaya una si sheer galay walaalihiin walaalayaal fiidiyowgan qof kasto fiidiyowgan ummadda muslimiinta iyo walaalahood gaarsiyana ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaa inuu sharka dajaal cawar iyo fidmadiisa ilaahay ka magan geliyo inaga idinka ilaahayna ka magan geliyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala وwaxa weeye qof kasto muslim oo khayrka si sheer galayna ilaahay waxaan uga barnaa subhanahu wa ta'ala inuu isagana ubadkiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa ehelkiisaba uu ka badbaadiyo sharka dajaal cawar waa wax muhiim ah in la isku baraarujiyo calaamadaas oo calaamad maanta muuqata ah oo loo wada jeedo waxa weeye waxay cadeynaysaa soo bixitaankii dajaal cawar in ay soo dhawaatay taana waxaanu kaga badbaadi karnaa sida nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam in aynu xifdino 10 aayadood ugu horeysa suuratul kahf marka saasa inoo ballan insha Allah سينا شير قرية وانوغا ولكن شمس الدين مكاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.